يعني waxa weeyaan nolosheenoo dhan ba systemku ka maqan yahay nolosheenoo dhan ayaa waxa ka maqan system maanta haddaynu awqaaf la samayn karo wadada jabta waa dhisan kari lahaa inagoon dawlad sugin miskiinka waxbaa la siin kari lahaa waxaad qiyaastaa wax weyn ka kaale hargeysa maanta waxa lagu qiyaasaa say xisaayaadkan google-ku qoro 1.5 milyan iyo 1.3 iyo meelahaas ay qoraan haddii qofkiiba koob shaaha shuba maalintii 1 shilin bixiya waa imsaad u malaynaysa waa malaayiin min dollaraat yani waqfi islaami iyo koob shaaha inuu ku caawinaa wuxuu samayn lahaa waxbarashada dadka wax ma haysatada oo dhan inaynu qur-aanka bilaash uga dhigno waxaad meelahan dadka maqlaysaa leh qur-aankii baa lacag noqday oo dee dadkii qur-aankii dhigan waa dhab oo lacag buu noqday laakiin dee wadaadkuna wuu baktinaya daan lacagta qaadin xaguu waa cuna ka helaya waxay ahayd innagu intaynu isaga kafaalo qaadna inaynu idhaahno qur-aanka bilaash ku dhig wariya isagana waxaynu cuno wax la mida intaynu siino wax cuno inaynu idhaahno 8 saacadood iyo 10ba shaqee taas waxay fudaydin lahayd yani haddii bulshadu ay xilka isa saarto oo ay qaado waxaan ogay waxyaabaha yar ee ka socda afar wadaad baa wajigu diirmay siday kolba shirkadu hortaagnaayeen lahayn waayo marka lagu garto kolba nin ordayo ma xasan cabdisalaam oge xasan xagu idin geey afarta shirkadood way ruudin oo ka caawin idinkaas oo qabtay ilaa shirkadee bal noo raac shirkadee bal noo raac dee maalin walba haddii hortaagnaado maalinta dabacda waxba siin mayso laakiin un system jiraa bay ahayd shirkadaani meel ay lacag ku shubaan haddii aanu jirin weliba iyagaa waxaan ku dhiiri gelinaya war idinkaas systemka garanayo shirkad samaystaye waqfigana hadda waa samayn karaysaan oo dadku idinkula guro dadweynaha kale ee muslimka ah waqfigu idinkula guro oo system leh oo maanta haddaynu idhaahno 2 sane soo socota waqfaynu samaynaynaa dadka inaynu qur-aanka bari karno bilaash lagu dhigi karo waa ku guulaysan karnaa 2 sane ku xigta waxaynu samayn karnaa waxbarashada inteeda ugu badan dadka aan waxaysan inaynu bilaash uga dhigi karno waa samayn karnaa 2 ku xigta waxaynu samayn karnaa dadka inta baahan ee magaalada degan in at least ramaqal xay waxay ku noolaan karaan in la siiyo in nafta lagu ilaaliyo idan waxaan tilmaamayaa waxa weeyaan social responsibility-ga dadka muslimiinta saaran nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi anfa'uhum linnaas dadka waxa u khayr badan ka dadka ugu anfac badan waa laga yaabaa magaalada inay idinla joogaan culamo idin anfacayo cilmuun idinku akhriyo bilaash ku akhriya sanadood ma sheekh dirir ma 40 sanadood buu idin akhrinay aan yareeyaba isna yudaada ka xanaaqire sodoneeyo way idinku waday hadda sano bilaash idinku waday hatta inta tiraahdo waad bahadsantay ummadda waxbaad bartaa yar waxaynu u baahannahay marka waxa weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraxumihim wa tacaatufihim kamathali ljasad alwaaxid isu danqadkoodu waa sidii jidh qura buu nabigu tilmaamaya laakiin marka uu system jiro ayaa dadka la gaadhsiin karaa oo qof waliba wax qaadan karaa bulshada cid waliba ay qaybteeda qaadan kartaa waxaan leenahay marka ayuha alaxiba masaa'ilkan aan sheegayna waxay ku salaysan yihiin ee muslimiintii hore ay ku guulaysteen kow ilaah iyo aakhiro in dadku rumaysay inay materialista noqonin bulshadu rabbu samaawaati walardi ilaaha kownkan iskaliya waxaynu haynoo dhan inaynu si dhaba u rumayno isla markaa aakhiro iyo xisaabtanna inuu jiro inaynu si dhaba u rumayno haddaynu taa rumayno oo rumayntu ta caqligaa uma jeeda ee ta qalbigaa baan u jeedaa waxay keensanaysaa inaan daar dheer dhisto inaan ka doorbidayo markaasi daar aakhira inaan helo inaan daar halkan ka dhisto iyadoo necessity-gayga ka mid tahay baa laga yaabaa inaan ka doorbido inaan daar aakhira helo taasi waxay keensanaysaa bulshadu inay mas-uuliyaddeeda ijtimaaciga wada qaado wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ilaahay baa inoo ballan qaaday waxaynu la baxna dhammaanteed hadduu cilmi yahay hadduu xoolo yahay haddii waxaynu la baxnaba inaan la inoo bedelayo si fiicanna inaynu fahmno xilka gudashadiisu
inaanay masaajidkoo la galo qura ahayn. dadka badh baa u fahmay cibaadaadku waxoogaa haddaad hesho ku noqnoqo xajka ama cimrada ku noqnoqo. in la xajo la cimraysta waa fiicantay, laakiin guriga kugu xiga iyadoo mid baktiyi uu joogo haddaad xagga xajka u sii socoto ama Hargeysa dadku qof waliba wuxuu odhanaya masaajid baa dhisaya. war Hargeysa masaajid hadda uma baahna. 500 bay ka badan yihiin inta masaajida ku yaalla. ma u malaynaysaa Hargeysa xaafadan waa deganaa 7 masaajid baa hareeraha iga xigay. markaasaa kii ugu dhawaa ciyaal bato waxaan sidhi warkaas kaga tag. mid baan maqlay quraan fiican akhrinaya. masaan sidhi warkaa quraanka wanaagsan laga akhrinayo qabo. waan tegey waaba imaamkii iyo quro intuu mixraabka galay keligii quraanka haysta oon qofna daba taagnayn meelaan kaga xidhan waay. oo masaajidka noocaas inaad dhisto iyo dadka masaakiinta hareeraha jooga inaad wax siiso keebaa la qaatay. يعني إنك وحي نقل دن مفهوم كعبادة هي بالشدة وحي نوقع بالنا دمانتين وحي نكوها منين ننيا مساجدنا نود صنو عقلي إنك يود الشرط دمانتين إن ننيا مساجد نود صنو لكن خيركم ما لا نود الشيء أنو كتشرين وضد عضبكم مريات الاستعباء مساجد بدنا ما أنت لدي سيادة عطا وضد عضبكم مريات وكقارق وطان قارق وكتشبين ومسكين كان لغاينا ماشين بيو فريسان يعني قاعدوا ولبا بيا كوسايدا يا وقتكو كذا بالمان بيا كوفريسانين ووضد سيارتو ضد حولبا لا ماري كارو الا انغو ضد حولبا انت يربي نو هيساناي ضد حولا يا قاعد قبه انت بو كنت عين لهي ضد وضد دستو waxaan uga dalay marka nabi maxamed alayhi salatu wasalaam markuu ajarka tilmaamay saxaabadii wuxuu tilmaamay wa fi bud'i ahadikum sadaqa midkiin inuu gabadhii haweenayda uu qabo inuu sariirta ku raali galiyo ayaa ajar ku jira baa leeyahay. yani ila hada alhad ayuu nabigu ku tilmaamay cibaadaadku inay yihiin. ninkii xooga weynaa saxaabada arkay nin jafa juglo meel maraya markaasay yidhaahdeen ninkaa wuxuu xoog hayo alla fiicnaan lahayd inuu jihaad ku gala bay ayay yidhaahdeen. markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu laba waayeelo gabgabobay ugu soo xoojinayo ama carruur yaryara uu dhalay uu ku asturayo ama uu naftiisaba baryada kaga celinayo fa huwa fii sabiili illaahi buu nabigu yidhi. ilaahay jidkiisii buu hayaa kaasi. saxaabadu waxay leeyihin isagoo jihaadka galaa ka fiicnaan lahayd ninkani waxaan u feedhahaysto iyo xoog. waxa laynoo tilmaamaya waxa weeyaan war bulshadu waxay u baahan tahay inay yeelato social responsibility inay dareemaan. siiba dadka madaxda u ah dadka hoggaanka u ah gaar ahaan dadka imkaaniyaadka u haysta ay u suurtagaltay inay wax qabtaan waa dadka hantida qaba waa dadka maalqabeenka waa shirkaadka waaweyn waa dadka wax qaban kara. waxaan leenahay markaa social responsibility inuu u baahannahay maaha wax walba inaynu dawlad ka sugno. systemka islaamiga dawladu waa wax yar